waatu aan mar raba la rumaysan karin waa adag tahay inaad duduub u liqdaa soobanuhu nabadgelina xiriirada Allah yeelay waxa uu nabaray inaan isku daweyno kaayada geela waana arrin runtii la yaab leh waxaanu daraasad ugu dhaaqnay tan ay sida gaarka uga kooban tahay kaayada geela daraasada waxaanu ka baranay in ay ka kooban tahay walxo aad u yaryar oo ilmi qabataya oo isugu jira qalin dahab iyo platinum intuba jirka bani aadamka waa ay u daran yihiin tan haddaba sida gaarka noo soo jiidatay waxay ahayd in walxaha yaryar ay raacayaan oo burburinayaan walxaha sunta ee sababa cudurrada halista ah sida kansarka jirkaaga oo gudaha ka fasfasa kadibna ay adkaato in si sahlan loo horqabto kuwaas oo dhami waxa u dawaa oo si sahlan u dabiibaya walxaha lagu arkay kaayada geela iyadii oo waliba aan waxba yeelin malaayiinta nudadka ee jirkeenu ka kooban yahay ee kuwa la jaarka ah maanta dunidan la jooga way adag tahay inuu qof isla soo taago oo intuu indhaha isku qabto hore isu dhaafiyo koob dheer oo kaadida geela ah sida awgeed waanu angajinay kadibna u qaabaynay sida dawooyinka caadiga ah runtii waa arrin cajiib ah waan filaynaa in mustaqbalka dhow uu geelu ka badbaadin doono aadanaha cudurro badan oo halisa sida aidiska kansarka cudurrada beerka iyo kuwa kale oo lagaba yaabee in maare loo waayo geelu waxa u horeeya galladaha ee abka badan ee eebba nahuuyey isagana ku mahadsan